maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo kan degmada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayay taliyihii hore ee magaalada Jowhar ee booliiska oo uu dhawaan xilka ka qaaday taliyaha booliiska Soomaaliyeed Ibrahim Cali Nuur ayaa warka mar kale magaalada Jowhar inoo soo diray. xafladan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay isla markaana shahaado sharaf lagu guddoonsiinayay taliyihii hore ee saldhigga booliiska magaalada Jowhar Dhamme Maxamed Siyaad Cali Canjeex oo uu dhawaan xilka ka qaaday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. xafladda waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar waxgarad haweeney dhalinyaro. gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Ciidiid Maxamed Cabdulle oo ah shaqsiga soo qaban qaabiyay xafladda ayaa sheegay in taliyaha Canjeex uu yahay shaqsi wanaagiisa lagu xasuusan doono. xafladan qiimaha leh ee lagu sagootinayo walaalkeen Maxamed Siyaad Cali Canjeex taliyihiisa hore ee saldhigga degmada Jowhar oo ka soo shaqeynayay muddo 8 sano ah waa wax ugu ah in 8 sano taliye saldhig laga ahaado hal magaalo taasoo uu lagu kasba karo in nin bulshadu rabta ah tahay oo nin dadkii isku hay kara ah tahay kaliya lagu joogi karo saldhig 8 sanadood Canjeex waa uga mahad celihiina bulshadan hawshii oo u soo qabtay annagana ka ganacsata ahaan waxaan rajeeynaa khayr badan waxaan kaloon ummadda maanta la wadaagaynaa inuu wax badan ka ganacsata ahaan nala soo shaqeeyay wax badanna nala soo qabtay uu ahaana taliye saaxiib la ah ganacsatada dhaqanka iyo bulshada dhammaanteed. dhinaca kale Dhamme Maxamed Siyaad Cali Canjeex taliyihii hore saldhigga booliiska magaalada Jowhar ayaa ka mahad celiyay xafladan maanta loo sameeyay. maanta waxaa farxad ii ah intaanu reer Jowhar oo odayaasha dhaqanka oo muddo soo wada shaqeynay inay maanta isagootiyaan xafladna ay sameeyaan waa ma sha Allah waa ku maasantay waa idinka mahad celinaa. waxaa kaloo mahad celinaya rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe oo idina qayb ka ahayd barnaamijkan. waxaa kaloo mahad celinaya maamulka gobolka iyo kan degmada oo ka soo go'aansaday inay iyaga maaragtay isagootiyaan xafladan ay ka soo qayb galaan aad mahadsantiin idinka. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa waxay sheegeen taliye Canjeex inuu ahaa shaqsi howlkar ah muddada 8 sano oo ahaa taliyaha saldhigga booliiska magaalada Jowhar. runaantii taliyaha ammaan waxaa naga badan inta ummadan reer Jowhar ku soo baxday ee ku sagootinayso ammaantaada ma soo koobi karno wada shaqayntaada ma soo koobi karno. aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galnay sagootintii Maxamed Siyaad Cali Canjeex taliyaha saldhigga badhahay aniga taliyaha hore saldhigga xaqiiqdii taliyaha wuxuu soo qabtay sadar boqol Soomaali waxay dhahdaan su'aal ka dhan waxa xaqiiqa in labeentii reer Jowhar haddaad aragto meel isugu timid meesha wax qabada ka muuqdo iyo wanaag qof hadduu intaas oo wanaag sameynina intaas oo dad oo qiimaha badan ma isku imaadeen. Ibrahim Cali Nuur TV Universal Jowhar.